بسم الله الرحمن الرحيم cashirkan waa cashirkii tobnaad ee maadadii financial accounting maanta waxaan qaadan doonaa account methods and adjusting accounts cinwaankeena maanta wuxuu noqon doonaa laba qaybood qaybta ugu horeysa oo ah methods of accounting anagoo qaadan doono wadooyinka loo isticmaalo accounting qaababka loo kala isticmaalo ama noocyadooda kadibna waxaan geli doonaa adjusting accounts xisaabaadka oo u baahan dib u habeynta qaybta dambe ee cashirka part 1 ayay noqon doontaa anagoo cashirka 11aad ee soo socdana kusii wadi doona adjusting accounts bismillahi nabda qofka reportingka accountantiga reportyada laga rabo waxaa laga yaabaa in laga dalbado waqtiyo kala duwan waxaa laga yaabaa in laga dalbado annually ama semi annually sanadle sanadkii 2 mar monthly bil walbaba in laga dalbado ama quarterly saddexdii biloodba mar in laga dalbado marka accounting period waxay ku xiran tahay waxa marka shirkadda maxay u baahan tahay qofka accountantiga ahi waxa uu u diyaarinayaa riboodyada sida ay shirkadda u baahan tahay haddaba marka wadooyinka wax loo diyaariyo marka report la diyaarinayo maxaa laga duulaa marka la diyaarinayo ama wax la diiwaan gelinayo la record garaynayo laba arrin baa laga duulaa accrual basis versus cash basis. Accrual basis, revenue are recognized when earned and expenses are recognized when incurred. Arrintan markii waxa weeyaan waa mabda'ii revenue recognition and expenses recognition. Labadii mabda ayaa waxaa lagu soo koobay wadda ah accrual basis lagu leeyahay. Maxay ka dhigan tahay markii accrual basis ay ka dhigan tahay waxaa la ictiraafayaa ama la aqoonsanayaa dakhliga markay shirkadda xaq u yeelato expenseskana marka shirkadda lagu yeesho okay kan ka soo horjeeda waxaa la dhahaa cash basis wuu ka soo horjeedaa where revenue are recognized when cash is received marka shirkadda ay lacagta qabato ayay leedahay dakhligii markaas un baan ictiraafayaa okay expenseskiina goormaad ictiraafaysaa expensesna waxaa la record garaynayaa when cash is paid marka ayada waxay ku dhisan tahay cash lacag ma baxday waa kharash lacag mana soo gashay waa iiraad haddaba xeer dejiyayaashu maxay ka qabaan gaab ma ogolo cash basis is not acceptable IFRS way ogoshahay laakiin gaab ma ogolo qaybta labaad ee cashirka ugu muhiimsan markaan qaybta hore kasoo baxno waa adjusting accounts waxa weeyaan waa cashirada accountingka ugu adag marka wax la baranayo xataa markii practicalka suuqul camalka waxa weeyaan waa diiwaangelinta ugu adag weeye lianna waxay u baahan tahay more analyzing inaad samayso waxayna ku xiran tahay adjusting marka la samaynayo waxay ka dhigan tahay waxa jiro initial recording iyo subsequent recording markii hore aan wax diiwaan gelinay wixii aan diiwaan gelinaa laga daba tagayaa la saxayaa waa dib u habeen xisaabaadka dib u habeen sifa aan usoo koobno marka xisaabaadka la dib habeeyo ee lagaaga baahan yahay inaad fahanto financial accounting waa laba nooc nooca ugu horeeyo deferrals iyo accruals waxay u sii kala baxaysaa laba kale deferrals oo revenue calaaqa leh iyo deferrals expenses calaaqa leh qof arday baa wuxuu isleeyahay deferrals revenue iyo deferrals expenses maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa receipt of cash that is recorded as a liability because the revenue has not been earned waxaad diiwaan gelisaa lacag lagu hormariyey sifa aad u gudbiso khidmad ama service ugu gudbiso macaamiisha ayay lacag ku hormariyeen weli maadan servicekii u gudbinin taas ayaa laga rabaa inaad u diiwaan geliso iiraad muajal ah oo deferrals oo dib laga ictiraafi doono deferrals revenue waxay ka dhigan tahay shirkadda lacag ayay macaamiishu ka qaaday weli servicekii umaynan gudbinin haddaba haddii aynan u gudbinin oo lacagtiina ay qaadatay shirkadda maxay diiwaan gelinaysaa the initial muxuu noqonayaa cash kor buu u kici cash
kadibna unearned revenue ama waxay dhihi kartaa deferrals revenue labada erayba waa isticmaali kartaa tusaalena sii macalin safar ayaa tahay waxaad u socotaa turki waxaad bixisay $1,000 waxaad bixisay kowdii bishii koowaad 2022 waxaadna safraysaa kowda bisha labaad 2022 markay Turkish Airways diiwaangelinayso markay tigidhka ku jarto xaq uma laha in ay revenue ahaan u xisaabiso maxaa sababay weli maynan ku siinin service-kii ahaa inaad duusho oo diyaaradooda raacdo oo seedkii ay isticmaasho marka kowda bisha koowaad 2022 waxay diiwaangelinaysaa debit cash credit and earned revenue or deferrals revenue marka adiga aad diyaaradda tigidhka ka faa'iideysato oo khidmadii lagu gudbiyo oo aad diyaaradii raacdo Istanbul ka degto waxa ay diiwaangelinaysaa oo ah labada bisha labaad 2022 ay maxay diiwaangelini markaas revenue ictiraafay oo maxay leedahay an revenue-gii liability-ga yaala credit-ka ahaa yay waxay dhihi debit and earned revenue service or revenue ticket kunki examples wuxuu ku leeyahay marka unearned revenue of airline ticket hal of way of airline ticket soo jaratay school tuition markii aad mesela madaarista ama jaamacadaha wax ka baranaysaan semesterka jaamacadaha qaarkood horay bay u bixi bay ku dhahaan horay waa inaad u bixiso horay markaad u bixiso okay semesterkii lacagta waan sii hormariyay $100 baan sii hormariyay $300 baan sii hormariyay laakiin awood may u leedahay shirkadda inay as a revenue u recognize garayso maya maxaa sababay waxaa sababay wali adiga waxbarashadii laguma siinin markii bisha ugu horeysa dhamaato ayay shirkaddu waxay sameynaysaa ama jaamacaddii sameynaysaa juz ka mid ah lacagtii aad bixisay مثلا semesterkii $300 $100 ayay ka ictiraafaysaa $200 still as a liability ayay u diiwaangelinaysaa marka deferral liability waa as deferral revenue waa as a liability I hope it's clear waa kan ugu horeeyo kan labaad marka waa deferrals expenses shirkadda markii hore ayadaa wax loo soo hormariyay shirkadda ayadaa hadda hormarinayso waa maxay tusaale ahaan wuxuu ku leeyahay payment of cash that is recorded as an asset because service or benefit will be received in the future examples prepaid insurance supplies and depreciation shirkadda ayaa waxay bixisay 2 sano caymis ayay shirkadeeda gelisay shirkadii caymiska lacag u bixisay shirkadda caymiska marka aan lacagta u hormarinay ma waxay ka dhigan tahay in expenses kharashaad ahaan oo sanadkan khuseeyo miyaan u diiwaan gelinaa maya caymiskaasi waxa uu qaabilsan yahay 2 sano sanadkan waxa bilowga sanadka kowdii waxaan bixinay initial recognition marka wuxuu noqonayaa tan markay tahay kowdii bishii koowaad 2021 waxaan bixinay caymis marka waxaan leenahay prepaid insurance oo lacagtii ahayd $2,000 مثلا oo 2 sano ahayd kadib maxaan leeyahay inta maxaan leeyahay marka cashkii aan bixiyay cash 2,000 okay maxaa expenses away maxaan u diiwaan gelin waynay expenses and insurance expenses maxaan u diiwaan gelin waynay waxaan u diiwaan gelin waynay lacagtan aan hadda bixinay waa masruufaad kharashaad aan isticmaali doono in the future faa'iidada waxaan heli doonaa in the future subsequent measures marka muxuu noqon doonaa 31 bisha 12aad sanadka markuu dhamaado bisha 2022 ay waxa ay ictiraafaysaa kharashaadkii khuseeyay sanadkaasi maxay leedahay marka waxay leedahay insurance expenses oo 1,000 ah kadib maxaan leeyahay ma cash aan leeyahay ma lacag ma bixin lacagta horaan u bixiyay maxaan lacagta markaan bixiyay maxaan diiwaan geliyay prepaid insurance aan diiwaan geliyay prepaid insurance kiiban hoos u dhigaya marka prepaid insurance credit aan leeyahay credit prepaid insurance kun marka tii accountiga 2,000 uu ahaa debit credit 1,000 rasiidka maxaa isoo haraya 1,000 sanadka soo socdaan isticmaali doono deferralska marka waxa weeyaan shirkadda in ayada lacagta loo hormariyo ay weli u gudbinin macaamiishii
ayna u gudbanin macaamiishii khadamaadkii ama servicekii marka maxay leedahay waxay leedahay unearned revenue liability bay ku tahay shirkadda markay ayada lacagta hormariso ay caymiskii ay shirkadda u hormariso expenses ma diiwaan gelinaysa maxay diiwaan gelinaysaa asset ayay diiwaan gelinaysaa marka ugu horeyso markay isticmaasho oo sanadkii dhammaado ayay expenses diiwaan gelinaysaa qaybta waa qaybtii u horeysa deferrals revenue deferrals expenses accruals waa maxay marka accruals waxay noqonaysaa accruals revenue inaad adiga lacagta ku leedahay macaamiisha iyo accruals expenses kharashaadka in adiga lagu leeyahay markii hore adaa wax lagu hormarinaya adaa wax hormarinayay hadda adiga macaamiisha wax ku leh waxay ka soo horjeedaa deferrals revenue ka soo horjeedaa accruals revenue waxay ka soo horjeedaa deferrals revenue accruals expenses waxay ka soo horjeedaa deferrals expenses kharashaadka adiga markii hore sii hormariyay hadda adiga kharashaad lagu leeyahay inaad bixiso ay tahay marka wuxuu ku leeyahay accruals revenue waxa weeyaan it shows the receivable that exists lacagaha adiga aad ku leedahay macaamiisha ee markaa taagan it records the revenues and revenue-ga marka aad xaqa u yeelatay diiwaangelinteeda weeye okay accruals expenses waa maxay expenses incurred but not yet paid waa lacag kharash lagugu leeyahay aadan weli bixinin maxaa ka mid ah kiradii guriga aadan weli bixinin canshuurtii dawladda kugu leedo weli bixinin salary oo lagu lahaa aan weli bixinin faa'iidadii oo aan weli bixinin waana sidii hore aan u soo sheegnay daa'iman marka adjustment account aan ka hadlayno waxa jiro initial recording aan horay bilowgii aan sameynay adjustingka marka uu ka daba tagayaa dib u habeen weeye oo xisaabkii dib loo habeynayo sifa proper amount uu ugu soo muuqdo weeye maanta marka cashirkeena dhan afartaasi waa badan tahay kama wada hadli karno maanta waxaan ku soo koobaynaa cashirka waxaan ku soo koobaynaa qaybtan kaliya ee ah deferrals expenses ayaan waxaan guda gelaynaa initial recording sidee loo sameeyaa sidee baa looga daba tagaa xisaabkaasi oo loo hagaajiya ayaan maanta insha allahu tacaala qaadan doonaa koobkii shaaha kululaha soo qaado firriqasi aan isla soconna indhahana fur cashiradan haddii aad hadda fahmi weyso mar walba way kugu adkaanayaan macallimiintana meesha ugu badan ay ardayda ku gaadaan waa adjusting accounts weeye adjusting account type weeye waxay ardayda ku gaadaan marka fursadaadi weeye indhaha soo kala fur okay deferrals expenses kii ugu horreeyay oo prepaid insurance waxay ku leeyahay tusaalaha on December 1st 2011 first forward paid 2,400 for insurance for 2 years macnaha waxay ka dhigan tahay 24 months oo muddadaasi waxay tahay marka December 2011 through November 2013 first forward recorded the expenditure as prepaid insurance on 1st December 2011 marka ay diiwaan gelinaysay maxay ku diiwaan gelisay waxay ku diiwaan gelisay as a what as a prepared insurance ku diiwaan gelisay oo maxay tiri meeshan markay diiwaan gelinaysay waxay tiri shirkadda marka waxay tiri prepared insurance 2,200 2,400 aan dhahno 2,400 cashkii ay bixisay credit cash oo kharashkii aan bixinay away maxaan expenses u diiwaan gelinaanahay waxaan u diiwaan gelinaanahay expenses lacagtan waxaan ugu talagalnay 24 bilood bilowgii bisha taagan tahay weli adiga maadan ka faa'iideysanin faa'iidada in the future ay dhici doontaa so the question is what adjustment is required xisaabka dib u hameyntaan u baahannahay maxay tahay waa goormaa dib u hameynta u baahannahay waxa uu ka dalbaday dib u hameynta bisha markay dhamaatay 24 bay ahayd bilowgii bisha markay dhamaato maxay ka dhigan tahay hal bil ayaad caymiska ka faa'iideysatay marka hadda ayaad waxa awood u leedahay expenses inaad diiwaan geliso insurance expenses prepared expenses arday baa wuxuu leeyahay macallin boqolkan xagee ka keentay boqolkan waxa laga keenay lacagta aan diiwaan gelin lacagta aan insurance ka siina meeqay ahayd 2,400 ayay ahayd waa runta macallin 2,400 inaan siinay waan arkayay okay meeqaan ugu talagalnay 2,400 waxaan ugu talagalnay 24 bilood hal bilaan rabnaa halka bil u qaybi calculator-ka soo qaado 2,400 oo loo qaybiyay 24 meeqa ku soo baxayso hal bil maxaan hal bil u diiwaan gelinay waxa laga dalbaday dhamaadka bisha December
in aad proper amountiga aad u soo muujiso prepaid insurance hal bilaad isticmaashay bishaas laga dalbaday inaad report garayso haddii sanad laga dalban lahaa waxa weeyaan waxaad u qaybin lahayd meesha 24 u qaybisay laba ayaad u qaybin lahayd 2 years sifa outcome ka natiijada uu kugu noqdo sanadkii okay prepare insurance markii ugu horeysay 2400 bay ahayd waxaan diiwaan gelinay dib habeen baan ku sameynay 100 marka balancega xisaabka balancega meequu noqday wuxuu noqonayaa 2300 oo loo isticmaali doono 23 bilood ay soo socdo xisaab cusubtii account cusub baan furnay oo insurance expenses ah goormuu furmay taariikhdu markay ahayd dhammaadkii bishii December meeqaan ku furnay debit oo 100 ah ayaan ku furnay prepaid expenses meeshaas aan uga soo baxnay tusaale ahaan hadii prepaid insurance aan ka wada meeshaas aan uga soo baxnay hadii lagu dhaho prepaid rent waa isku mid any prepaid the same concept aad u isticmaalaysaa number 2 marka supplies horaad wax soo gadatay alaab badan baa soo gadatay waxa soo gadatay wixii shaaha ay shaqaalahaaga cabayeen waraaqadihii wixii dhan baad waxa weeyaan December bilowgeeda soo gadatay lacagta ku soo gadatay marka waxay noqotay 9720 wuxuu ku leeyahay during 2011 first forward purchases 9720 of supplies first forward recorded the expenditure in the asset waxay u diiwaan gelisay hanti ahaan maynan u diiwaan gelinin expenses waa saxsan tahay si sax ay samaysay on December 31st bishii markay dhamaatay ay shirkadu waxay rabtaa inay ogaato maxaa u haray bisha maxaa la isticmaalay on December 31st 2011 account of the supplies indicated wuxuu tusiyay alaabta taala qiimaheedu inay tahay 8670 on hand shirkadda inay gacanta ku hayso 8670 bisha koodeedana meeqaan soo gadanay 9720 maxay ka dhigantay marka so $1050 ayay ka dhigantay of supply waa used waa la isticmaalay during December hadda marka waxaa la rabaa in what adjustment is required inaad dib u habeyn ku samayso accountkaas sifa proper amount uu ugu soo muuqdo ti accountiga marka maxaan sameynayaa bishaasi ayaan waxaan gelinayaa supplies expenses markii ugu horeysay waxaan diiwaan geliyay asset account hadda supplies expenses baan diiwaan gelinayaa supplies ki baan hoos u dhigayaa sifa uu credit ka u tago credit sifa u tago marka markii ugu horeysay waxaan diiwaan geliyay 9720 waxaan ka isticmaalay bishaasi 1050 balancing maxaa ii soo haray 8670 sanadka kale ee 2012 ayuu igu gudoomayaa sidoo kale waxaan furnay supplies expenses bil cusub ayaan furnay I hope it's clear okay depreciation is the process of allocating the cost of a plant asset over its useful life in a systematic and rational manner depreciation waa maxay depreciation waxa loo isticmaalaa kaliya PPE property plant and equipment ayaa loo isticmaalaa property plant equipment oo kamid ah non current asset kamid ah ayaa loo isticmaalaa depreciation waa maxay depreciation waxa weeyaan tusaalaha waxa weeyaan waxbaad soo gadanaysaa baabuur baad soo gadatay baabuurka waad isticmaalaysaa isticmaalka aad isticmaalayso ayaa waxa ay keenaysaa inuu qiimihiisa hoos u dhaco qiimaha hoos u dhicitaanka qiimahaasi ayaa la rabaa in lagu turjumo as recording in la diiwaan geliyo baabuur baan maanta soo gadanay baabuurkii waxaan soo gadanay bishii koowaad 2021 sanad kadib qiimihiisu wuxuu ahaa maalan baabuurkan soo gadanay $15000 buu ahaa tusaale ahaan sanadka markuu dhamaado $15000 miyuu ahaanaya maya maxaa keenay shirkadu waa isticmaashay wuxuu noqonayaa wax la isticmaalay sidaa darteed conceptingan waxa weeyaan waa in la qaybiyaa costigan baabuurka aan ka soo bixinay waa inaan u qaybinaa it is useful life da'diisa shirkad walbaba waxa ay awood u leedahay inay qiimeyso assetkeeda non current assetkii PPE-deeda inay qiimeyso ama estimation ku samayso meeqa sana la isticmaali karaa baabuurta qaarkood marka waxa weeyaan 4 sano 5 sano la isticmaali karaa tusaale ahaan
marka waxay sameynaysaa 5 sano ayay cumrigii u qaybinaysaa 15 kuna la qaybinayaa waxa loo qaybinayaa 5 sano maxaa la diidan yahay marka waxa la diidan yahay arintan waxay calaaqa la leedahay matching expenses waxay calaaqa la leedahay matching expenses aniga maanta baabuurka soo gatay haddii aan diiwaan geliyo haddii aan dhaho markii baabuur la soo gato ama assets markii la soo gato diiwaan gelintiisa wax loo diiwaan geliya waxa la dhahaa diiwaan gelinta saxdan ka hadlaynaa waxa la dhahaa مثلا vehicles la soo gatay vehicles la soo gatay soma cash as asset ahana loo diiwaan gelinaya maxaa u dhihi weyna expenses maxaa loo dhihi laayahay expenses hadaad dhahdo oo aad sanadkan kor saarto ma sanadkan kaliya la isticmaalaya maya meeqa sana la isticmaalaya 5 sano hadii 5 sano la isticmaalayo cadaalad ka hadal oo 5 sano u qaybi ha ikor saarin kaliya ani labada waxay ku leedahay 2022 aniga kaliya hay kor saarin ee 5 sano ay soo socoto u qaybi qaybta aniga aan ku leeyahay isaar okay sidee ba mucaadalada markaas ay ku soo baxaysaa waxa jiro wadooyin loo isticmaalo wadooyinkaasi waan qaadan doonaa insha Allah taala waxa kamid ah to straight line la dhaho in si siman si cadaalad ah sanawaadka loogu qaybiyo marka maxay noqonaysaa sifa depreciation expenses loo helo mucaadaladan ayaad isticmaalaysaa marka asset cost oo waa 15 kun oo gaariga ku soo gadanay asset cost laga jaray residual value shirkada waxay qiimeynaysaa waxay leedahay 4 sano kadib baabuurkan 15 kun aan ka bixiyay meeqaan ku sii gadi karaa waxaan ku sii gadi karaa tusaale ahaan qiimo waa lagu siinayaa 5 kun lagu yiri مثلا waa lagu siiyay meeqa sano isticmaali karaa baan iri waxaan isticmaali karnaa 5 sano oo loo qaybay 5 sano waxa ku soo baxayso sanad walbaba depreciation ki expenses ki aad diiwaan gelin lahayd ayaa ku soo baxayso depreciation ki sanad walbaba aad diiwaan gelin lahayd ayaa ku soo baxayso marka goorma laga rabaa kan dib u habeynta goorma laga rabaa sanadka markuu dhamaanaya laga rabaa sanadka markuu dhamaanaya ayaa laga rabaa badana ugu badan boqolkiiba 80 adjustmentigu waxa la sameeyaa sanadka markuu dhamaanaya la sameeyaa okay ayadoo tusaale aan qaadanna marka depreciation dib u dhicitaankii ama qiimo dhicitaankii weeye depreciation qiimo dhicitaankii oo kale weeye on December 1st 2011 first forward purchases equipment for 26000 cash haddaad xasuusatay miisaaladii haddaad ilaa hadda ila socoto 26 kun equipmentigii aan ku soo gadanay cashiradii hore waad garanaysaa the equipment maanta waxa weeyaan qayb kale laga tusaya marka more information lagu siinaya the equipment has an estimated useful life baa lagu dhahay oo 4 years ah 4 years marka maxay u dhigmataa 48 lianna wuxuu rabaa inuu ku weydiiyo hal bil marka saas darteedu wuxuu kugu sii kala dhigdhigayaa 4 sano inay ku jirto 48 bilood lianna outcome-ka uu rabo ayuu per month rabaa imtixaanka hadhow laguma siinayo waxa lagu weydiinayaa 4 years lagu leeyahay hal bilan lagu weydiinayaa adaa la rabaa recalculating inaad samayso okay and first forward expect to sell waxay rabtaa inay ku gado waa residualki aan ka hadlaynay the equipment at the end of it if it is useful life after sano kadib for 8000 okay marka qaarkood waxay sameeyaan macallimiinta ma ku siinayaan residualka haddayna ku siinin maxaad sameeyni imtixaan baad ku jirtaa residualka laguma siinin 26000 iyo 4 sano lagu siiyay waxaana laga dalbaday bil awal shay markuu sanawaadka ku siiyay bilna ka dalbaday sanawaadkii bilo u bedel waa number 1 residualki muunan ku siinin 8 kun maxaan sameeyni residualka doonaysin ever u dhig hadduu ku weydiiyo hadhow macallin residualka adibaadan keenin soo haddaadan keenin waxay ka dhigan tahay inuu khurday hol la isticmaalaynin ayaad dhahaysaa easily isaga marka wuxuu rabaa in aad analyzing aad samayso ardayga waxaa laga rabaa daa'iman inuu analyzing sameeyo inuu wax xifdiyo lama rabo maskaxdiisa inuu expand ku sameeyaa la rabaa okay December baana laga dalbaday marka depreciation expenses 26 kun oo laga jaray 8 kun oo loo qaybiyay 48 calculator qaado ha iyo aaminin calculator qaado daa'iman calculator qaado ila xisaabi lambarka haduu khaldamo waxa weeyaan sax adiga 375 per month weeye markaan diiwaan gelinayo marka maxaa la dhahayaa markaan diiwaan gelinayo waxaan leeyahay depreciation expenses accumulated depreciation equipment oo 375 su'aal baan rabaa hadda meeshan inaan idinka weydiiyo marka muxuu ahaa initial recognition recording markaan equipmentiga soo gadanay 26 kun waxaan koodii bishii December maxaan diiwaan gelinay commentiga ku soo qor waxaan diiwaan gelinay commentiga ku soo qor okay equipment 26 kun koodii December
depreciation expenses 325 debit accumulated depreciation xisaab cusub wey xisaab cusub oo ka dhashay sifo loo diiwaan geliyo depreciation expenses waa in la keenaa accumulated depreciation oo qaabilsan equipment okay accumulated depreciation hadduu qaabilsanaan lahaa vehicles lagu hordhigi lahaa macnaha waxaa la rabaa ku walbaba accumulated depreciation kiisa in laga horgeeyo marka waxaa lagu leeyahay accumulated depreciation waa contra asset account weeye waa xisaab ka soo horjeedo assetka oo equipmentigii ahaa weeye waxaa la dhahay marka 26,000 oo laga jaray 375 sifa noodka loo helo maadaama oo mucidaad aan soo gadanay equipment aan soo gadanay ay ka dhalatay labo t account hadhow sidee baan ugu soo bandhigayaa financial statementiga sidee baad ugu soo bandhigayaa sidan aad ugu soo bandhigaysaa waxaad samaynaysaa equipmentigii 26,000 less baad leedahay marka less accumulated depreciation intaad keenaysaa marka 2 bilood hadday tahay 2 bilood baad keenaysaa 3 bilood hadday tahay sanad hadday tahay intaad wada keenaysaa marka waxa ku soo baharaya netkiga ku soo harayo ee aad financial aad waxaan leedahay equipment is shown net of accumulated depreciation waad ku mahadsantahay daawashadaada cashirka maanta intaas uu ku egyahay insha allahu tacaala cashirka 11aad ayaan kusii wadi doonaa cashirada adjustmentiga la xiriiro ee noo haray hal qayb bas aan ka qaadanay 3 qayb baa noo hartay cashirada soo socota insha allahu tacaala aan ku qaadan doonaa waxaad igala socon kartaa mar walba waa Mustafa Xareed waxaad ku soo biiri kartaa Somali accountant waana ku mahadsantahay daawashadaada intaan ku kulmayno insha allahu tacaala cashirada soo socdo waxaan idinkaga tagayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh